الله الرحمن الرحيم halkan waa Ubad Health Cooking asxaabta Ubad Health Cooking waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe iyo like iyo share aad nagu taageertaan maanta waxaan ka hadlaynaa raqiga iyo faa'iidooyinkiisa marka waa waxa la soo koobi karin dalal badan iyo dalal fara badan ba isticmaalo oo waxa u isticmaalaan noocyo fara badan ba u isticmaalaan raqigaas aad u jeedaan waa raqi aad iyo aad u qiimo badan oo inaan ku baraarugsanayn dalalka isticmaal waxaa kamid Indonesia kamid oo Malaysia kamid dalal badan oo Asia baa ku jira oo aad u fara badan halka maanta waxaan ku soo shubanay in aan xalay aan la dhigay halkaas koob biyo ah haddana waxaan rabaa inaan ka sameeyo cabitaan inta kalena way halka ay taala waan soo qooyay marka waxaan rabaa inaan shiito hadii Allah idmo dalalka marka oo kale oo laga helo waxaa kamid dhulalka tropicalka sida Africa oo kale kamid Afrika hadoo dhan dalal badan baa laga helaa anaga Soomaaliya raqiga aad baan u isticmaalnaa laakiin uma isticmaalno sida dadka kale u isticmaalaan iyagu wax u isticmaalaan juice bay u isticmaalaan oo cunooyinka ku darsadaan oo suugooyin bay ka dhigtaan oo snack bay ka dhigtaan marka toddoba faa'iido oo uu leeyahay baan maanta ka hadlaynaa tan koowaad waxa weeyaan digestive waa meesha afka ilaa dabada inta ku dhamaata waxa la yiraahdaa meelaha cunnada inta Ilaahay ugu talagalay ama lagu shiido oo dhacaamada Rabbi ugu talagalay baa buu kordhiyaa bahalka kan aad u kordhiyaa wuxuuna ka hortagaa calool fadhiga iyo kansarka iyo waxyaalahaas oo dhan waxay marka dhaqaatiirta cilmi baarista ku sameeyay ay sheegeen in halkii koob oo raqi ah oo ku jiro 6 gram oo daily fiber waa waxyaalaha kan u baahan yahay caloosh u baahan tahay digestive-ku oo cunooyinka qolofta laga helo tan labaad waxa weeyaan blood pressure-ka kiisa hooseeya iyo kansar labada uu level gareeyaa haduu qofka dhiig kar qabo iyo haduu qabo dhiiga hooseba waxa la sheegaa halkii koob oo raqigan inuu ku jirto 753 mg oo potassium taas baa keenaysa maartay inuu dhiigu oo maintenance gareysmo oo level noqdo oo la barbar dhigay intaas oo la barbar dhigay 33.6 mg oo cusbada caadiga ah marka dadka dhiigkarada qaba waxa u fiican inay cusbada ay ka dhigtaan raqiga ka dhigtaan baa fiican cilada marka uu dhiigaas uu meenad gareysan waxa kamid ah blood vesselski ama meelaha dhiigu qaadaan buu balbalaariyaa wuxuu ka dhigaa kuwa oo si fiican oo dhiig u dhaxmarayo tan saddexaad waxa kamid ah inuu kaliyaha hagaajiyo potassium faraha badan darteed jirka uu kaliin gareeyaa wasaqduna ka saaraa waxyaalaha oo jirka ay ka haray cunooyinka ka haro depositkan kaliya uu ka saaraa tan afraad infectionadu la diriiraa maadaama ay ka buuxaan vitamin C fara badan Ilaahay ugu talagalay jirka wuxuu ka saarayaa sumowga oo dhan buu ka saarayaa jirkuna wuxuu adkeysanayaa infectionada iyo bakteeriyada banaanka kaga timaada kansarkana waxa la yiri ku dhaca kaliyaha iyo waxaas iyana uu ka hortagaa waxa kale oo kamid ah midda shanaad inuu aad u hagaajiyo maqaarka iyo timaha labada wuxuu ka dhigaa kuwa strong ah oo xoog leh oo shining gareynay oo dhalaaliya baa kamid ah sababtan waxa weeyaan waxa ku jira vitamin A iyo essential protein oo Ilaahay ugu talagalo caadi ee vitamin C kuwaas maqaarka siinaya shining iyo dhalaalin tan lixaadna waxa weeyaan Ilaahay qadartiisa hurdu keenaa dadka hurdo la'aanta ku dhacday aad ugu fiican yahay bahalka kan inay xoogaa iska cabaan magnesium baa ku badan darteed baa muruqyadu waxay helayaan relax iyo inay ay dareemaan dabacsanaan qofka marka hurdo la'aanta ka tagaysa waxa kale oo kamid ah midda toddobaad ay tahay vitamin B complex oo dhan baa ku jira especially vitaminkan la yiraahdo B3 ama niacin la yiraahdo oo aad iyo aad wanaagsan baa ku jira wuxuu ka hortagaa amaba dadka uu ka saaraa dadka cholesterolka qaba wuxuu hoos u dhigaa cardiovascularka dhibaatada ku timaada ama xididada problemka wadnaha hoos u dhigaa vitamin B3 hadii jirka ku yarta maxaa dhacaya waxa dhacaya qofka jirkiisa cadaan baa ku dhacaya cudurro badan baa ku dhacaya sida shuban baa ku dhacaya maqaarka cadaan kaga dhacaya dementia wax la yiraahdo ama ilowsho dadka kan oo wax ilaawaha buu qofku noqonaya waxa ku jirta Ilaahay qadartiisa maadadan la yiraahdo folic acid ama vitamin B9 ama qofka sidoo u yaqaano dhiiga cas mid kordhisa baa ka buuxda red blood cells-ka oo dhan oo baa jirka inuu degdeg u soo saaro ama uu sameysto bay ka caawisaa dadka badanaa raqiga isticmaalana anemia kuma dhacdo asxaabta Ubad marka hawsheeni waa dhamaatay waan soo shiiday markaan soo shiiday juice baan ka dhigay waa kaasa
wax yaroo mintiyana waan ku shiiday caleenta mintiga leeraadaan ku shiiday koobka quruxda badan buu noqday haddii aad caafimaad ka rabtid wiigiiba hal wiig isticmaal subax kasta isticmaal koobkaas oo kale aroortii oo kale caloosha dhan baa kuu baxaysa qashinka dhan baa kaa baxaya marka iska jooji si joogta ha u isticmaalin waxaan ku daray qaadadaas malabkaa baan ku darin qiyaasta qaada la-eg waan ku walaaqay marka waa wax aad iyo aada u macaan dadka xanuunada qaba gaaska iyo daawooyinka cuno iyo dhiigkarka qaba iyana bal dhakhtar ha la xiriireen ilkaha oo kale inaad ka cadeeytid baaroon waka koobka quruxda badan buu noqosaa oo rasiinka ah cabitaanada ku darsada juusaska ku darsada waxaas oo dhan ku darsada